waxa uu ahaa qurba joog waxa uuna dib ugu soo laabtay Soomaaliya si uu dadka Soomaalida iyo kuwa ajaanibta u jeclaysiyo hidaha iyo dhaqanka. Axmed Xasan Sheekh waxa uu sameeyaa sawir gacmeedyada waxa uuna dukaan sawirada lagu iibiyo ku leeyahay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho. Alaabaha hidaha iyo dhaqanka Soomaalida iyo duurjoogta ayuuna sidoo kale sameeyaa. artiska ma ahayn wax aan iskuul u galay, wuxuu ahaa wax natural xag alle iga yimid. teeda kale hadeertaan wadanka waxaan ugu soo laabtay in aan dadkii tuso hiddihii iyo dhaqankeennii hore, inkastoo aad ay ugu faraxsan yihiin. sawirada aan badanaa sameeyo waa fine art wax la yiraahdo, oo waa wax clear ah, wax cad sida xayawaanaadkoo kale, dadkoo kale, portraits, sawir gacmeedka oo dadka wejiyadooda iyo la sawiraayo. waxaan sameeyaa oo ii dheer wax la yiraahdo oo adduunka loogu dhawaaqo abstract, sawirada oo muuqaaladooda aan la dareemi karin, inkastoo aad markii aad gudaha u sii fiiriso aad fahmaysid in ay yihiin wax micno bixinayo. waa garoonka meesha oo sidaan kuu sheegay ugu amniga wanaagsan waaye, aad loo amnigiisa aad fogsan yahay. teeda kale dadka oo qurbaha ka yimid sida hadda aan kuu sheegayay ama ajaanibta ah, waa ayaga dadka badanaa wax iibsada, jecelna in wadankooda ay kala laabtaan waxyaabihii hiddihii dhaqankii oo hore. sida hadda dukaanka aad aragteen oo kale waxaa yaallo alaabihii hiddaha iyo dhaqanka ahay oo sidii rasmiga ahay anna gacanta ku sameeyaa si ay labadaba mid u doortaan. dadka ajaanibka markay aan la kulmo ma oga ayaga inaan inta joogo, laakiin markaan la kulmo waxay dhahaan qof noocaadoo kale ah oo waxaan samayn karo inuu wadanka joogo maba u malaynaynba. marka waa ugu sheekeeyaa inay jiraan rag kale oo anoo kale ah